مبارك ليفس ورمود كي هاي عمر حاجي معه هذا يعني مو هذا علينا هذا وح حرفة الحين كنا دونها أضيدا يعني قريش يصاب بنيجي دونا كمبيوتر في قيمة كبتين يصاب بنيجي دونا حرفة هذا هو قيمة بدن هاي مركز هذا وح نقصه فرنا عيدها القرآن كإلى آخر دونتا نوال محمد عمر نوال قصه هو مصلحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله. هذا نوع يا محمد عمر نجا وكان دونا وخبر شلا أهمية إلى هاي محمد عمر نجا كسر له مساحة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ورسوله وأشهد أن نبينا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين سيدي وسادتي تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما هذا الله سبحانه وتعالى يوسفناتي وأنه عاصمات قمنا هل كان يسكن وذكر سي قربتا مدنيال مروي معلمين مرتي شرف والدين وسلامته سيرة المدرسة وكيفتشين حفلة قيمها هي غاياها بدن له oo ay soo abaabuleen macallimiinta iyo ardayda wax ka barata qaybta computerka Englishka taas oo garab weyn ay nagu siiyeen mudane Mursal Muuse oo qayb libaax ka qaatay habsami u socodka xafladani taasoo haddii aanan OBF aan jir lahayn inuu suurtoobi lahayn inaan halkan xaflada ku qabsano alxamdulillahi rabbil caalamiin walaalkeena aad u mahadsan yahay waxaan kaloo mahad ballaaran aan usoo jeedinayaa dhammaan waalidiinta waqtigooda qaaliga ah noo huray nagalana soo qaybgalay xafladan sida heerka sare loo soo agaasimay taasoo aan kusoo bandhigi doono waxbarashada ardayda waxa ay barteen xafladdu waxay ka koobnaan doontaa dhowr qeybood ahmiyadda ugu weyn aan xafladda halkan iskugu qabanay waxa ay tahay barnaamij la yidhaahdo baraarujinta waxbarashada barnaamijka waxbarashada waxa ay ka turjumaysaa waxaan la soconaa carruurteena Soomaaliyeed diaspora aan wada nahnay qurbaha joogo in ay dhibaato badan ay ku qabaan xagga cilmiga magaalada waxaa u badatay wax la yiraahdo traffic school dadka dhan waxay ka fikirayaan shurguud ay shurguuda wata biyan soo qaatay taxi aan soo qaatay bal hadda banaanka u baxay in arka naga dhalinyarada banaanka iska baaruska ila jira shurguudka malcuna علمي معها لكن وحكون سالية acceptance or driving license إن أولا كان أبوه كوني جبتوها لو كان هو يوم على سعودي أفكار إن دين جل محمد كان عليه ضرور من هذا تشبه من دكتور you know nothing about حقيقة نفطه ومن داس بل بها at the same time ودا كان أقول الله حتى إن driving license عن هسمه سي عن
waxyaabihii oo lagama maarmaanka u ah adeeg markaa u baahato markaa dan yeelato waa bigtig waa laakiin cilmi ma aha waa inaan raadinaa cilmiga waa inaan doonaa cilmiga waa inay soo baxaan dhalinyaro soomaaliyeed oo injineer ah dhaqaatiir ah waxaa arkaysaa dhalinyarada dugsi sare soo dhameynaa video tuura d ama e si tacbaana kusoo baxay way yar tahay dhalinyaro gudubta oo heer jaamacadeed gaarta taasina waxaa ugu wacan dadaalkii ayaa ardayga marka uu soo baxo maskaxda waxaa ugu programsan shuruud b u qaada b hadduu qaado wadhaatan taxiga muraa meelahan fiiriyaa theory akrinaa kana akrinaa waa loo baahan yahay dadaal waay laakiin waxaa muhiimadda waa in la saaraa cilmiga bulshada waxyaabaha mustaqbalka ah waa loo baahan yahay berita marka adiga aad wax barato dhaktar aad noqoto ama injineer aad noqoto beri dhulkayna hooyo waxba u qaban kartaa caalamka meesha aad tagtana cilmigaaga ku shaqaysan kartaa marka injineerka oo dhaktar aad tahay xirfadaad taqaanaa dalkiyaa kuu baahan ummadiyaa kuu baahan gormaa marka sidee lagu heli karaa marka dhalinyar oo soomaaliyeed oo soo baxda sidee lagu heli karaa oo injineer ah oo dhaqaatiir ah oo muhandasyaal ah oo fikir badan keenaya waxaa lagu heli karaa in la helo inaan basicala iskala shaqeyno ahmiyadaha ugu weyn halkan ay ku qoran tahay baraarujinteena waxbarashada waa education and encouragement carruurta inaan dhiirigelin aan ku siino waxbarashada inaan guriga ka taageerno waxaan dareemaynaa isku-dhishka waalidka ah markaa cunuga iskuulka uu ka soo baxo adooga ama marta midkooda shaqeeya ama wada shaqeeyaan guriga hadday yimaadeen waxay controlayaan waxbarashada carruurta cunug maanta waxa la soo siiyey waa laba sheekeysana maxaa soo qaadatay ingiriis maa lagu siiyey maatee maa lagu dhigay swedish maa lagu dhigay bugta controla waa fiirinaa wuu la soconaa waxay leeyihiin guddigay leeyihiin oo waalidiin isku xiran waayo swedishka haddii oo qalad oo dhaco oo macalinka hataa adogu waa ogaya cunugiisa oo controla waxbarashadiisa heerkiisa haddii mararka qaarkood waxaa dhici karto bitiga aan u qalma cunugiisa la siiya asigana guriga u control la socdo guddiga leeyihin guddiga u gudbinaa birta marka macalimiinta miiskaa loo garaaca waxa dhacay xaqiiqdaba wallah see ku dhacda anaga cunugeen waa fiican yahay waxbarashadiisa daarti nadi taxama see ku dhacda marka bitiga ma u qalmo waxay ka fikirayaan mustaqbalka jaamacadda cunuga oo geli lahay laakiin cunuga celceliskiisa averagkiisa haddoo keeno d iyo birta ma suurtoobaysa heer jaamacadeed inuu gaaro marka annaga ma qabno guddi maxaa yeelnaa waalidkii ama dhisneenbo dhibaatada taagan waxay tahay waalidkii aan dhisneen hadduu waalidka dhisneenin cunuga goorma horumar sameynaayo wax horumar ma sameynayo marka bulshada dhan waxa ay naqatay inaan horumar la sameynin inaanan culays aanan saarin carruurta inaanan ku dadaalna carruurteena waalid walba waa jecel yahay cunugiisa inuu noqdo dhaktar inuu noqdo engineer laakiin shaqo badan aan ka horeyso maxaa loo baahan yahay marka sidee baa lagu gaari karaa hadalka waxaa lagu gaari karaa inaan sameyno building basic foundation of teenagers building basic foundation of teenagers inaan carruurta aan kasoo dhisna aas-aaska guriga sidiisa marka la dhisaayo injineerkana waa fadhiyaa maasha allahu tacaala waa jaamacadda hadda soo dhameeyey cabdiraxmaan maasha allah marka guriga marka la dhisaayo wuxuu u baahan yahay aas-aaska in birta si fiican shub fiican lagu shubo shamiindo fiican lagu shubo gurigaan imise ayuu jiri karaa meeqa sana la isticmaali karaa imise qafood ayaa ku noolaan kartaa macquul ma tahay gurigan 100 sano hadda dhiman ma jiri karaa 70 sano hadda dhiman ma jiri karaa waa in laga fikiraa guriga intaan la dhisin kahor laakiin haddii la yidhahdo madmadu waa la ku yaqaan cunuga iska bax dugsiga iska aad iskoolka aad ma fahmo lacagteeda soo dhacda anaga jaabkaan iskaga ridin waa culeyskeeda leedahay waxaa loo baahan yahay cunugeena inaan ku sameyno wax la yidhahdo investment maalgelin soomaaliya waxaan ognaa waan la soconaa in carruurta ma jirtaa hay-ad annaga nagu taageerta carruurteena dhaqaalo nagu siiso soomaaliya marka la joogo waa maya waalid walba wuxuu asiga shaqeeyo ayuu carruurtiisa ka bixiyaa waalid walba wuxuu u shaqeeyo ayuu carruurtiisa ka bixiyaa iskuulka ha ahaato dugsiga qur-aanka ha ahaato wuu ku taageeraa marka hadda ilaaha noo nimciyo waddan waxaan joognaa cunugaagana wax ku qaado iskuul dowladda ha kuu dhigto maanta marka haddii aad u istaagto cunugaaga inaad investment aad ku sameyso maalgelin beri wuxuu noqonaa wiil ama gabar meel fiican ka soo badan ama dhaktara ama engineer mahmaan ingiriis waxay tirahdaa if you plan out the season you will harvest the growth in the future haddii miro aad abuurato mustaqbalka adiga baa guranaya laakiin tiin haddaad abuurato hay tufaax ma cunay maya tiina cunay laakiin tufaax haddaad abuurato tufaaxa aa cunaysaa if you plan out the season you will harvest the growth in the future haddii aad miro fiican aad abuurato mustaqbalka adiga ayaa cunaya wiilkaaga maanta engineer ku noqdo alxamdu lilahi rabbilcaalamiin waa mahadinaysaa waana horumar aada u wanaagsan oo loo baahan yahay in la iska kaashado
waxaa kaloo jirto integration society isdhexgalka bulshada anaga qaladan ka fahamsanahay wax meesha yaalana ma aha dadku waxay ku dhahay no Swedishka dhexgelin ummadaha kale naga dhexgelin looma baahno annaga waddankan waan ku noolnahay miyay jirtaa cid diyaar ah inay dalka dib ugu laabato runtaan isku sheegna maya doontaan waa wada saaranahay doontu waa la wada saaran yahay xaqiiqda dhabta waxay tahay qof walba waxay leedahay marka Isbaaniska miis booriya nagana sheekadu waa sii furfuraysaa ma soconayso xaqiiqda dhabta marka waxay tahay sidee ayaa bulshadan ugu dhex noolaanaa sidee aan horumar u sameynaa sidee ubadkeena aan ku badbaadinaa sidee baan carruurteena injineero iyo dhakhaatiir aan usoo saarnaa waa inaan bulshada dhex galno waa inaan bulshada la sheekaysano waa inaan dadaal sameyno okay waxaa kaloo jirto participating ongoing activities and development qaybtaas aad aan ugu liibadnaa ka qaybgalka activity-yada ama howlaha ama horumarka ka socda magaalada aad aan ugu liidanaa marka loo fiiriyo bulshadaha kale waxaa loo baahan yahay marka in la heli karo Soomaali fara badan oo isbitaal ka shaqeyso Soomaali fara badan oo injineera dhismooyinka galaya wax dhisana injineero lacag fadhiyo waa inaan heli karnaa solicitors abukaatyaal waa inaan heli karnaa Soomaali badan abukaatyaal abukaat Soomaalida yaaks fadhiyo oo u doodaya xuquuqda human rights u doodaya waa in la heli karaa ma qabno waxyaabaha anaga aan ku liidin waa ajaanibta kala fiiriya solicitors ee qaban ama lawyers ama advocates ee qaban oo u doodaya xuquuqda annaga ma qabno maxaa keenayo annaga basically aan isku duubnayn carruurteena aqoon fiican aanan saarin waxa kaliya aan ka fikirno waxa ay tahay waxyaabo kale oo annaga aan noo muuqan lamana baahno waxaa loo baahan inaan horumar sameyno okay showing respect and obeying Swedish regulations inaan xushmad soo bandhigno oo aan raacno sharciga waddankan waa victig waa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay marka inaan ku dadaalno carruurteena inaan investment ku sameyno oo carruurteena amaalgeena